jawharkii aan jeclaaday oon yaraan maad aragtay la kulmay unbu ii yahay balse anu waxaan idhahdaa hadda imikaaban kasii jeclahay حبيبتي مرة ويش الحمد لله وانا جاي قال الموقع هي بس ايدي قاعدة اوكي جزاك الله خير اوكي شغلان waxaa iskale wadaadka shaqadan iskale sheekh hay soo first family jacayl ka hadlay baan yiraahdaa خير الله aniga waxa ii shaareen nin baan maalin dhaweyd maqlay wuxuu yiri jawhar jacayl maya axmed jacayl kulay macalimiinimana أنا مربي مربي magacaygan saarsanaya alxamdulilah diba cumar baa la yiraahdaa magacaygan ku joogaya anagu waxaan rabnaa kaliya in nagu xasuusto inaan dadka wax barno kaliya kama rabno wala qiis wala leeylo wala wax kale jacaylka yagu anaguna dhex yaala waa wax private waa wax noloshayada ah laakiin mucallimiin baan nahay anu waxaan jecelahay macallimad in la arko oo wax yar hadii la iga faa'iideysan karo la iga faa'iideysto tajribaduna way sii saacideysaa لأنه واحد حداد كل ناشة ويكون فضول داينة كهرش لكن هدانا الدمين أو نتجرينين شوي هاي ما كشيء كان كتير هرت مركا يجا هربا وحال إسكسمين جميل سيدا عادي دعوة ده مساجد ده إيو كونفرنسية دي ميلها ما ركتيه مركا لأنه غيره بانو كهل جرني إن هلو قيس وناكسن وفي عن موقته ديتو وحاكو حكتي in aan samayno waxa la yiraahdo love challenge halkaasaan marka aniga iyo wadaadu aan go'aan ku qaadanay in wixii caadiga looga hadli jiray inta la iska daayo in loo bedelo yaana inay ka soo baxdo wax ku ool ma garat Soomaalida jacaylka si fiican u yaqaanaan laakiin taariikh ahaan way leeyihiin laakiin sida loo matalay loo sameeyo way nagu yartaa inta badan mugta maalin baa jirtay aan xanuustay marka waxaa dhacday xaqiiqatan in wax kasta la ii keeno raashin wala ag fadhiyaa waan jiifaa laakiin wala fahmi lahay saaxiibkan waxaa hayay dareen ah in uu rabay guur marka dee guur gabdho 100 gabdhood ba meesha jooga laakiin hiba ku dhex jirtay 100 gabdhood ma fahmi marka hiba way timid way fiirisay 100 qof baa soo ziyaartay way iska noqdeen laakiin ziyaarada hiba way ka duwanay ziyaaradaas hoos markay soo salaam alaykum ay hoos soo tiri dadka baan maqlay codkeedii markaas aan idhi waaw hiba soo gashay marka qofka aad raacaysa dooranayso waa inaad quality ku doorato marka iska raaco ma qof kasta gabadh kasta iska guurso ma way timiday way aragtay xaaladeedii oo aan fiicnayn deeto way noqotay waxay doontay raashinadan aniga ugu jeclaa iyo daawo sharoobo iyo kiniin marka kharash badan bay gelisay marka way diyaarsanaysay iyada laftigeedu kala farad bayd mugtahay marka waxay tiri ninkan khatar waaya la sii dayn marka aniga waxa aad ila weynaaday oo iga duwanaaday runtii 100 qof oo kala timiday maxaa iyada ka duway why waxa ere way ka fikirtay way ka walwashay she's caring and loving so ku dhag lama sii dayn karo halkan xajiyo markay raashinka ii keentayna waxba ma cuni karin marka hore waan cunay sharoobadiina waan cabay within half an hour warankii ahayo iga go'ay kabacdi maxaa dhacay ninkayga dhaqaaqi lahaa waan baladaan usoo fadhiistay waan istaagay waan dhaqaaqay gabadh kastoo timaada waan barbar dhigaa hibo waxay noqotaan waxaan jirin batani mufahad marka hibo waxay ahayd waa magaceedana eeg hiba baa la gift marka waxaan arkaa gift ka yimid sabadina anaguna jawhar baatay jawhar jazaak allah khair nolol cajiib aan soo martay
dad waxaan ahayn yaraan isku caroosay, yaraan isku soo jeclaaday, muddo fara badan isa sugaayay, imtixaano badan soo maray, ilaahay soo ka guuleysiiyey oo kasoo gudbay. waxa noloshayada factorka ugu weyn amba shayga isku keenhaya waa jacaylka aan isku qabno runtii. alxamdulilahi rabbil caalamiin. jacaylkaasna waxaa ka dhashay gabadheeda quruxley ee curadeyda Raxmo, waxaa ku dhashay gabadheena labaad Nasro Axmed Bilaal iyo Raxmo. alxamdulilahi rabbil caalamiin. marka dadka qaarkood waxay yidhaahdaan runtii noloshaad soo marteen markaan fiirino gabdhihiina u baqnaa, gabdhihiina ayaan u baqaynaa, because waxay ku koreen, leanna waxay ku koreen jacaylkaas iyo xubbigaas iyo wanaagaasna dhex yaala oo kaftan leh, oo xataa la isdagaalayo, oo xataa la isku qaylinayo. laakiin markasta aad madaxa ku haynaysid qofkan waa qofkaagii, meel loogama socotid. yaa dhibaatadan taalla waa dhibaato, laakiin isaga maaha qofka xun, aniga maaha qofka xun. ma garatay? jawharkii aan jeclaaday oon yaraan maadaragtay la kulmay unbu ii yahay, balse anu waxaan idhahdaa hadda imikaaban kasii jeclaha. wallahi in lagu jeclaado waa waxa ugu wanaagsan adduunka jira. lacag waad heli, waad waayi, wax walba waad heli, laakiin jacayl inuu qofku jeclaado naftiisa oo dhan ku siiyo waa wax aanan fududayn. ilaahay un baana qofka siin karaa. waan isleeyahay anigu alxamdulilahi rabbil caalamiin. waxaan dhahaa saaxiibadayda nolosha ku tilmaamay, yacni ma aha xaas, ma aha, way dhaafsan tahay. colleague baan nahay, team baan isku nahay, waan wada shaqaynaa, gabdhahan baan wada korsanaa, wada socodka, wada jirka, wada samaynta mawduucan inaan ka wada shaqayno, guryaha aan dhisno, jiil aan soo saarno. taasaan kaga duwannahay dad kale. hiba oo mutacalimada oo wax taqaano oo wax baratay oo research samaysa, aniga oo macallin oo wax raadiya, in aan dariiqa dacwada aan ku heshiinay. taasaan ilaahay ugu mahadinaya subxaana wa tacaala. nimcadda uu ilaahay i siiyey bacda alislaam iyo iimaanka waa Axmed Jawhar. wallahi been ma kuu sheegay, leanna waxa weeyaan gabdhaha khayrkay ah amba maaragtay aan wada caroosnay boqolkiiba imisaa ku nool rafaad. ma garatay? waxaayoo dhanna maxaa sababay? waxaa sababa waxa weeyaan markii ugu horreysaa waqti laysa siiyey. xataa haddaad degdeg ku guursato oo qofka aana taariikh hore aynan lahayn, oo guurkiinu iyo carooskiinu uuna jirid adag ku fadhiyin, haddana waa la samayn karaa. maaha waqtigu kaama dhicin. haweeneydaada please waqti sii, adaa arki doona natiijada kasoo baxay. dumarku diyaar bay yihiin akhiyo, diyaar bay yihiin. wax u yeera, wax kaala yidhaahda, wax inawada yidhaahda, wax kaxaysta, wax la sheekaysta, wax la fariistay laayihiin. marka waxyaalo yaryaroo routiinka ka baxsan haddii la sameeyo waxa weeyaan jacaylka way xoojinaysaa, runtii way xoojinaysaa. jacaylka dadka qaarkood way ka yaqyaqsoodaan, ama waxay u arkaan wax ceeb ah. anu waxaan u arkaa in ay tahay firaaq, ama culummada Soomaaliyeed aan ku soo celiyay, yacna xoog loogama hadlo. xoog waxaa looga hadlaa zinada. annaga casharkeenna waxaa ku jira cashar la yidhaahdo qurxinta qolka hurdada. qoysas badanna raalli ahaansho ay raalli ku ahayn qolka hurdada ayay ku burburaan. kama arkaysid inta badan in laga hadlo qolka hurdada xalaasha ah muxuu kaga duwan yahay zinada. lama promote gareeyo, lama sheego raaxada ay helayaan wiilka iyo gabadhu markay isguursadaan ay qolka hurdada ku erayaan. caafimaad baa ku jira, ilaahay baa ku farxaya, ajar baa loo qorayaa. saxaabada waa kuwii la yaabay. wa fii budci axadikum sadaqa. wadaadadu markay sheegayaan calaa muruuri kiraam walayaal maraawn waa laga gudbaa. qaarkood waxay ku dhihi warsheeg waxaa naga daa ilaahay maqane waan naqaanaaye naga dhaaf. zinadii baad ka hadlaysaa 24 saacadood, xal uma haysid dhalinyaradii. guurkii macaankiisiina maaragtay uma sheegaysid. yaa u sheegi marka? luuqii suuqaa la isla wada gali, waana dhib. marka in la promote gareeyo guurku raaxadaas inuu leeyahay. aniga marka waxaan leenahay in la barto, la isbaro, laguna dhiiri geliyo siduu nebigu ugu tirtirsiinayay dhalinyarada in ay guursadaan. markay guursadaanna diintooda muslim ay u kamilmayso, in lagu dhiiri geliyo, weliba loo sheego macaanka halkaa ku jira.
waxa ugu fudud Axmed waxa weeyaan inaan wax ku siiyo koobkaas inaan ku siiyo waa inaan lacag ku soo gado Soomaa on keeno on doono on soo iibsho on keeno laakiin inaan kelmad yar ku yiraahdo on xabiibo ku yiraahdo oo naftayda aan ku yiraahdo oo jawhar aan ku yiraahdo oo nacam aan wax wanaagsan qofka u doono waa free waa bilaash marka cilaaqadiina waxay u baahan tahay boorka in laga jafo in wax yar oo cusub lagu daro annagu waxaan barnaa jacayl kaliya ma waa isfahanka labada qof qaabka u noolaan lahaayeen nolol fiican say u heli lahaayeen isfahankooda say u wada hadli lahaayeen intaan baranay baaba ka badan ba wax walba ma garan marka walaal waxa weeyaan insha Allah wax badan baa ka baran ha bartaan dadku